xubnahan oo ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salel ayaa waxay mar kale ay baaqdheer ay ka direen xaaladda ay ku sugayeen dadka ka soo barakay abaaraha baahsan ee ku dhuftay bariga Somaliland oo badiba soo gaadhay deegaanada gobolka Awdal. warar madax bannaan oo naga soo gaadhaya deegaanada ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakay abaaraha baahsan ee ku dhuftay bariga Somaliland ee ku sugan deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladoodu ay marka ka dambaysa ay ka sii darayso iyadoona wararku intaas ay ku darayaan in dadkaasi ay haysan biyo iyo baad. xubnahan ka socday guddida taakulaynta abaaraha oo iyagu kormeer kala duwan ku soo sameeyay goobo ka mid ah meelaha ay ku soo barakeen dadka abaarta ba'an ee saameysay bariga Somaliland ayaa fariin u diray ummadda muxsiniinta iyo xukuumadda waxayna ugu baaqeen halkan waxaan baaq ugu diraynaa ummadda muslimiinta baaqaas oo ku aadan dadka ay abaaruhu saameeyeen barkay runtii waxa weeyaan culayska soo fuulay gobolka culays yar maaha ilaahay waxa ka baryaynaa in culayska naga dulqaado waxa weeyaan dadku aad bay u dhibtoon yihiin maalin kuma darayaan way soo biirayaan meesha uu reer maanta ka guuro reer kala soo galaya waad arkaysaan xirooyinka yar yar muuqda afar reer saddex reer baa ku jira runtii waa culays intiisa leeg ilaahay waxa ka baryaynaa in culayska naga dulqaado marka labaad ummadda muslimiinta ee damiirka naxaya ku jiro waxaan uga baryaynaa oo walaalahood u weydiinaynaa inay soo taakulayaan waxa weeyaan waa tii sadaqada la baxayay waa tii waxa weeyaan ku haboonayd dad la soo baxa waxa ugu daran maanta dadkaas waxa weeyaan waa biyo iyo baad wax dad cuno iyo wax duunyo cuntaba maanta waa laga maran yahay dadkaas way qaawan yihiin dhaxan baa haysa waa halkii u adkayd jiilaal bartankii baan joognaa dadkaas waxay marayaan xilligii waxa weeyaan xoololiyaga waa la iloobay waxa lagu dhow yahay xilli dad baxo marka ummadda muslimiinta waxa ka codsanaynaa dadka ayna u damqadaan walaalahooda oo ay soo kaalmeeyaan waxa weeyaan waxaan uga bixi duqeyda guddida waxaan mar labaad ku celinayaa wax xilligii la isku naxay walaalayaal dadkiina u damqada oo dadkiina soo caawiyo jazaakumullahu khayran oo qof kasta oo wax bixin kara inuu istaago qofka hal qoys bil wax siin kara inuu siiyo qof wax siin kara bil waa inuu istaago qofkii 100 qoys wax siin kara waa inuu istaago dawladda lafteeda waxaan leeyahay haddii laga hurdo arrimahani meel darab bay gaadhayaan waxaan leenahay intay goor tahay fadhiga ha laga kaco goobta aan joogno waxaan ugu qaybinay bustayaal iyo tibir iyo gogol ugu qaybinay mar hore reero kale oo degan kii uu ka baxay kana soo galay haddana uu cusub yahay kuwii hore baaha marka waxaan leenahay ilaahay ha laga yaabo reer Awdal waxaan leenahay mar fadhiga ka kaco imtixaan bay nagu socdee yeedaan dhicin imtixaankee ilaahay ka cabsano aan u naxariisano dadka ilaahay bay nagu naxariisani ilaahay saasoo noogu naxariisani saasoo ilaahay noogu naxariisani haddaan daawano oo nin walba dihiisa ku jiro dadkeedii guryaha ku jiray ee waxaystay ee daaraha ku jiray iyo dhaxanta arkaysaan maxaad u malaynaysaa dad masaakiin oo dibad jiifa meesha aad arkaysaan waxa weeyaan 4 qoys baa degan 4 qoys wax alla wax u dhisan iyo wax u samaysan iyo meel ay ku gabadaan midna ma haystaan saaka subaxii baan halka maray waxaanu tagnay ilaa magaalo cad ilaa waxaanu tagnay wajaale ilaa gabiile baan tagnay ilaa hadda waan ka soo noqonay intaa waxaan kormeeraynay oon ilaalinaynay ilaa intaa waxaan ilaalinaynay martii waxaan arkaynay waxaan kormeeraynay bal inaan aragnay dhibaatadu intay leegtahay inay wax iska dhimayaan oo dadkii wax dib u noqonayaan iyo inay wax soo kordhayaan waxa noo cadaatay hadda iminka in maalin walba ay soo kordhayaan dadkii maalin walba ay dadkii soo kordhayaan iyagoo maalin walba ay soo kordhayaan ay maalin walbana sii jilcayaan xoolihii way sii jilcayaan dadkiina wuu sii jilcayaa baahidii way ku sii badanaysaa dhaxantii way ku sii badanaysaa biyo la'aantii way ku sii kordhaysaa cunto la'aantii way sii kordhaysaa caafimaad darradii xooliyo dad way ku kordhaysaa way sii kordhaysaa markaa abaarta ilaahay baa markaa ina badbaadin kara laakiin waxa weeyaan cid kasta oo dameero wax dhibayaani fadhiga ka sare kacdo qof walba wuxuu ku deeqi karaa ugu deeqa dadka hadda iminka xilka mas'uuliyadda haya sida guddida abaaraha heer qaran iyo dawladda Somaliland waxaan u sheegaynaa ku baraarujinaynaa fadhiga looga noqdo halka maanta ay taagan tahay haddaanan sida odayaashu ay sheegeen aan hore looga socon waxaan u maleynayaa toddobaadada soo socda waxay noqonaysaa in xaalku sida tan ka sii xumaanaya haddaanu rabbi ina soo gaadhin ومحمد حسن سماشد بر Somali News مقالة Boorama